maanta waxaan guur ka dalban doonaa gabdhaha caanka ah ee social media ku jira maadaama diinteedu ay banaysay afar xaas ah afar dumar ah ayaan ka guursan doonaa gabdhaha caanka ah sida aad muuqaalkan ku soo maqashay maanta waxaan raadinayaa xaas wanaagsan waxaanan ka raadin doonaa Instagram-ka dhexdiisa habka ugu xun ee lagu helo xaas wanaagsan habka ugu fiican ee lagu helo xaas wanaagsan haddaba miskiinkan yar ee u jeedaan miyay ka aqbali doonaa aynu gudagalno waxaynu ku bilaabi doonaa gabadhan oo lagu magacaabo Safaa Aadam gabadhan waxay ku jirtaa filimka Arday magacay caanka ku tahayna waxa weeye Hibo waxa dhacday gabadhan in aabaheed uu ku qasbo nin ayna rabin maxaa gurkan ugu dadajinaysa midda kale aniga qof aqoon si u gursana muddo sano ayaa jira wilna wax barashada ay ii socoto marka sida Hibo hooy anigu baddaadaan jir markaan aabaha isguursanayn haka oohin gabadha haday hooyaday tahay sadaqday aad baan ku salaamay laakiinse gabadha haka oohin maanta wixii ka dambaysa aniga ay xaaskayga tahay okay waxaan noo qornay assalaamu calaykum walaal qaali in yar kadib waxay noo soo qortay wacalaykum assalaam walaalo haddana waxaan u qoray ma moodeen inaad ii soo jawaabi doontid una waxay isoo tiri sababta waa in aynu u cadaynaa waxaan u qoray gabdhaha quruxda badan badankoodu dadka lama hadlaan caarso runtay ma hadde waxay ii soo qortay masaasa waan gartay maxaad iga rabtaana waxaan kaa rabi lahaa gabar sharaf badan baa tahay kaliya tan waxaan kaa rabaa inaan ku guursado diyaar ma tahay sidaanu qalbigeeda u degno waa inaan u qornaa eriyo qurux badan waxaanan u qoray dembi ayaan soo galay waa la iraadinayaa fadlan qalbigaaga ma igu qarin kartaa kaliya tan markay intaa maqasho waxaan filayaa inay qaadan doonto waxay ii soo qortay kaka waa si fiican anu qosol ma rabo iyo jah iyo waxaasan kaa rabaa in yar kadib waxaan u qoray laakiin waxa ka sii fiicnaan lahayd inaad barto sida qalbiga loo xado sababtoo ah kayga mar hore xaday gabadhan waynu kaga waalaynaa waynaan soo xirigelinaynaa waxay ii soo qortay qalbiyada dadka inaan xado ma moodi jirin oo waayo walaal laakiin waan ka xumahay kayga lama xadi karo gabadhu adaka okay saan uga sii waalo waxaan u qoray shoppingka ma jeceshahay dan baan kala yahay ee hay ii soo jawaabtay la eg in yar kadib waxay ii soo qortay aad weliba anna waxaan u qoray waxaan ku hayaa store buuxa oo jacayl ah oon adiga kugu tala galay shaaruuqaanka Soomaalida inaan ahay maan liiska ogeyn kadibna waxay noo soo qortay jah in yar kadib waxaynu u qornay waan ogahay in nin aanada rabin lagu daray fadlan inta aanu guurku dhicin anagu ma isguursanaa anaa ku dhaamo odayga waxaan ahay wiil qurux badan oo lacag leh armayna saahinde maanan wiil yaro shidan hayn kadibna waxaynu soo tiri kaka talo ma qosol bay ka wadaa waxay kala ii soo qortay weligay ma arag nin qurux badan haddana lacag leh ee bal sawirkaaga ii soo dir la iskuma helo miyaa wiil qurux badan oo haddana lacag leh waa runteed sababtoo ah dadka lacagta leh waxay u badan yihiin dad waaweyn oo bidaar leh laakiinse waxaynu u diri doonaa sawirkayga iigu shidan ee ku jiro moobilka saaxiibayaal waan waayay sawir shidanba sawirkanaan soo helay laakiinse keligii miyey waxaa igula jira saaxiibkay sawirkaas aynu u diri doonaa waxaanan ku hoos qoray sawirka walaal sawirkan ii ilaali yaan lay cayuumine inaan kaa fallaadhu saaran tahay ayaan ahay ee dhanka bidixda taagantay eeg waan u sii caddaynayaa in yar kadib waxaa ii soo qortay walaal wiilkaa kale ma ii soo raadin kartaa isagaan u malaynayaa inuu lacag leeyahay aniga ima rabtid miyaa hadalladan aan kuu soo qoray ee aan kugu soo jiidanaya 5 habeen baan raadinaya u soo jeed saaxiibkayga waad rabtaa miyaa isagaad rabtaa inuu ku guursado allah qabtay صاحبي هل ترى إنسانية هل كاتلو يقاطع ولي يقف كقرح بدن صور هالجلي أوكي قبل الضباط إنه كعصر نقول كوها وي سيدا أسود جيتو وحن أقرية شرفي إن مرة رلو حلو أي أحد إن يركض واحد يسوق قرتي أو سببنا أنا وحن أقري سبب توقع قبل بدن قرح ذو ضيال قاطع ورد واحد يجني رومانتك ترانا يولي وبلي وحبل يجي مقبل كرو أوكي واحد يسوق قرتي يجي كل دادي وأنا وحن أقري حيوانات ما تعيشها waxay ii soo qortay badeetana waxaan u qoray markaas sabab anigana maxay jeclaan weydii ukaadi intaan islaha eri qurux badan sameey ana bas aayay okay waxay ii soo qortay liid dheer oo qosla haddana waxay soo raacisay qofkii ugu horeeyay ee iscaay aniguna waxaan u qoray afkayga xaday sababta waxaan islaha waxa sameeyay eri qurux badan oo aad ku soo jiidan karto aan u sii raacay inaan ku guursadaan rabaa maxaad iga leedahay haddana waxay ii soo qortay family-gu igama yeelayaan aniguna waxaan u qoray maxay yihiin iyagu markaa hor baa tahay kadambana waxay ii soo qortay ninkayga ayaan ka wadaa war waxay nasiib xumadan gabadha saddexaad ee nagu xigaysaa waxa weeye
okay waxaynu qoraynaa assalaamu calaykum qurxay seetay walaal 1 hour later. la hadda iimay soo jawaabin message kale aynu qoraynaa waxaanu qoraynaa markaad fursad hesho isoo qabo waan ku sugayaa bal aan ka war sugno 3,000 years later. in yar iyo rasuga anaa aqaana waxay ku soo jawaabi doonteen waxaanu qoraynaa qurxay wax muhiim ah ayaan rabaa inaan ku sheego haddii taa ka soo jawaabi weydo wallaahi waan block garanayaa in yar kadib waxay noo soo qortay maxay yihiin walaalo waxa muhiimkaas oo ma waxa muhiimka doonaysa waxay yihiin ku sheegayso waxaan u qoray inaadeer ilaa maantaan quruxay ku hay waxaad ii sheegtaa quruxda halkay kaaga tagay fircoon baaba ku dhalay waxa muhiimka in ku sheegay waxa weey inaan ku soo helay filterku qurxinaya waa diir la'aaye intaasaan ku sheegay noloshu maxay iigu diidantahay inaan helo xaas wanaagsan qofka kale ee aan ku xigsiinna waxa weey waa Aisha Aziz waxaan u qoraynaa ma taqaanaa sababta aan u rabin inaad noqoto jacaylkayga in yar kadib waxay ii soo qortay hee walaal sababtu waa maxay أنا waxaan u qoray sababtoo ah waxaan rabaa inaad noqoto xaaskayga in jacayla uu matali kara leewbile waxa ii soo qortay wow أنا waxaan u qoray goormaan ka soo doonta aabaha waxa ii soo qortay xilligaad jeceshahay iyo liid dheer oo qosla kaftan iyo xasan moosamiya dhabbay iga tahay أنا waxaan u qoray isla bariba diyaardan soo raacaya Sweden aan kugu imaado fiidiyoga marka daawanaysa Sweden baan joogaa